السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروان جنال وأبو روان. انت بدن waxaa maqalnaa gabar guur lagu qasbo ama ay qasab ku tahay in nin guursato, balse nin dhahaya qasab ayay ugu ahayd inaan guursado gabadhan ama naagtan oo waxyaabo ku cusub inta badan dhagaha dadka waaweyn ama dadka caqliga leh. qisadeena caawa waxay daaran tahay nin jazaar ah oo hilibla ah oo dilay gabar ay dhashay xaaskiisa. caaliya waxay ahayd gabar 38 jir ah. waxay guursatay nin, kadibna ninkii waa ay kala tageen mushkilad iyo khilaaf zawjiya tiro badan kadib, balse ninkii waxay u dhashay gabar. gabadhii waxay noqotay gabar xanuunsan oo qabta xanuunka ay dhahaan saraca amaba qalalka sida soomaalida ay u taqaano. ilaahay subxaana wa tacaala naguma asiibo, inta xanuunsanna ilaahay ha ka qaado xanuunka noocu doon ha ahaade. caaliya waxaa dhacay in nin dariskeeda ah oo lagu magacaabo cali uu ahaa nin mihnada hilib iibinta ama jazaarnimada ka shaqeeya. ninkii caaliya dariska la ahaa waxaa dhacday in uu jeclaaday caaliya. caaliya waxay ku tiri nin yahow weligaa ma aadan guursan, inkastoo markaasi nin weyn ahaa. waxay ku tiri weligaa hore umaadan guursanin, waxaan kugula talin lahaa in aad guursato gabar yar oo noqota mid adiga iyo ilmahaaga waqti u hesho. maxaa yeelay aniga waxaa igu xiran gabadheeda yar oo xanuunsan oo daqiiqad walbana ay suuragal tahay in xanuunkaasi uu ku dhaco. run ahaantii cali jaceylku uu qabay caaliya darteeda wuxuu yidhi waxaan kuu sameynayaa shuruud walbo oo adiga aa qabtid. caaliya waxay ku tiri aniga haddii la guursanaayo waxaa ila noolaanayso oo ninkana igu aqbalaya gabadheeda yar ee xanuunsan. cali wuxuu yidhi marka waa ogolahay, gabadhan kaliya ma aha, 10 caruur kale haddaa wadata xitaa anigaa kugu jecel oo kugu rabo. okay, waxay ku tiri marka waxaa u timaadaa aabahay si aa u dalbato in liiga guuriyo. aniga haddii gabadheeda ila noolaanayso diyaar baan ku ah. run ahaantii cali wuxuu sameeyey in uu odayg u tegay. odaygii dhalay caaliyana wuxuu aqbalay in gabadhiisa uu guursado. maxaa yeelay waxaa aad u adag dalalka carabta gabar lasoo furay in la guursado amaba gabar ninkeeda dhintay in la guursado, oo waxay ka tahay wax aad raqiis u ah xaggooda. marka waalidka in ay fursadaas helaan in gabadhooda mar labaad la guursado, misna cunugteeda yar ee xanuunsaneedna ay la noolaanayso ayada ninkeeda, waxay u arkayeen arrin aad iyo aad u wanaagsan, wayna soo dhaweeyeen. waxaa dhacay cali in uu guursaday caaliya. markii uu guursaday kadibna waxay usoo guureen hooygooda zawjiyada ama gurigii ay degi lahaayeen. durbo waxaa bilowday reactiono ama isbeddel xagga cali ah oo ay keentay xanuunka gabadha yar oo si joogto ah u xanuunsanaysa, weliba markii la canaanto kale aad u sii xanuunsata, mar walba dhacaysa. waxaa marka meesha imaanayo hooyadan gabadheeda yar xanuunsan. markii gabadheeda xanuunsato ama ay qalasho in ay mar walbo gabadheeda waqti siiso, khaasatan
markii gabadhan yar la dejiyo ama la seexiyo qol keligeed, waxaa dhacayso in cabsi darteeda sometimes xanuunkii ugu dhaco. waxay taas sababtay ama kaliftay in hooyadeed inta badan ay gabadheeda qolka kula jirto ilaa ay kasoo seexiso, mar walbana dhagteeda ay ku maqan tahay ama attentionkeeda uu jiro meesha gabadheeda ay jiifto, maadaama gabar xanuunsan ay tahay. cali run ahaantii aad buu u dhibsaday arrinta gabadha. marka waxaa dhacday mar iyo labo iyo saddex in ay isku dhaceen isagii xaaskiisa, iyana ay jawaabteeda ahayd adiga ayaa aqbalay in aniga iyo gabadheeda aan wada soconayno amaba aan la guursanaynin. marka shuruudeedii ugu horeysay amaba ugu adkeed ee aan kaa dalbaday midaasay ahayd, marka waa in aad ku qanacdaa. waxaa dhacay caaliya iyadoo ku maqan maalin maalmaha ka mida suuqa in gabadh yareed oo ula joogo adeerkeed ninkii hilibka iibinayay ay yara qaylisay amaba si isaga uusan jeclaysanin ay ku dhaqaaqday, kadibna si arxan dara ah wuxuu ku dhaqaaqay in uu gabadhii garaaco. gabadhii nabaro badan buu u geystay oo garaacid ah, oo ah nabaro aan muuqanaynin balse jug gudaha gabadha u gaaraysay ahayd. waxaa dhacday intii uu garaacayay in gabadhi dhowr mar ay xanuunkii ay qabtay uu ku kaco. ugu dambeynna gabadhii yareyd, ilaahay saqiir janaha ka dhigay dhahan soomaalida, dembiga aan lahayn in meesha ay ku dhimatay. kadibna wuxuu sameeyey si qalbi adeeg ku jiro inuu ag fariistay inuu xabad sigaara shito. waxaa dhacay in caaliya ay guriga kusoo laabatay, waxay aragtay gabadheeda oo meesha jiifto oo aan dhaqaaqaynin. waxay ku tiri maxaa ku dhacay gabadhi? wuxuu ku yidhi gabadhii xanuunka dhowr mar ku kacay, mana dhaqdhaqaaqayso oo ma nuuxsanayso, meeshaasi taala. caaliya iyada oo aanan shaki gelinin ninkeeda in ay ka shakisay, iyadoo weliba cabsi ay ku jirto in iyana masiirkeeda uu noqdo meesha gabadheeda yareed ee martay, waxay ku tiri waay aad dhakhtarka ugu wici weysay, ambalaas ugu wici weysay, oo aad xitaa dhakhtar u geyn weysay gabadha. gabadheedii bay inta soo xambaaratay la soo carartay, waxay tiri dhakhtarkan tagaya, iyadoo ujeedkeeda uu yahay in markaas ay tagto saldhigga booliska. waxaa saldhigga booliska soo galay caaliya oo gabadheeda yar xambaarsan oo meyd ah oo ooyeysa. waxay tiri waxaan rabaa in aan la kulmo madaxa dambi baarista ee saldhigga. kadib markii ay la kulantay waxay tiri suuqaan aaday, gabadheeda yarna sidana ugu soo laabtay. gabadheedu way xanuunsan tahay, waxay qabtaa xanuunka qalalka, muddayna xanuunsan tahay, laakiin xanuunka qalalka ee gabadheyda qabto ma aha mid gaarsiinayo in ay u dhimato. marka waxaan rabaa in la caabiyo oo la ogaado gabadheyda qofka dilay. su-aalihii ugu horreeyay la weydiiyey waxay ahayd gabadhaada aabaheed waan kala tagnay tiri. waxaa lagu yidhi yaa guriga idinkula nool? waxay tiri nin kale oo i qabo oo mihnadiisuna ay tahay jazaar ama dadkan hilibka iibiyo, isaga ayaana guriga joogay, ana suuqaan aaday, waxaan usoo laabtay gabadha oo sidan ah. waxaa la su-aalay ma jira wax khilaaf zawjiya oo idin dhex maray adiga ninkaaga? waxay ka sheekaysay qisadeeda. waxay tiri ninkan markii guurkiisoo bandhigayay aad baan uga labalabeeyey oo waxaan ku iri nin yahow ma anfacayso, maxaa yeelay gabar yar oo xanuunsanaan wataa, isagana wuxuu igu khasbay in gabadheeda yar iyo aniga iyo haddii aan ilmo kaloo tiro badan wataba uu igu doonaayo uu i guursanayo.
balse baryihii dambe waxaa soo baxay khilaaf ah in uu aad u dhibsaday gabadha yar xanuunkeeda. wax kale kuma dhibsanin, wuxuu ku dhibsaday xanuunkeeda. waxaa dhacay in isla markii booliska ay soo raaceen gurigii la yimid, la kaxeeyey cali oo marka hore inkiray in uu isaga ka dambeeyo dilka gabadha. kadibna wuxuu yidhi haa, oo markii aad loogu adkeeyey su-aalaha oo dhan walba laga soo maray, wuxuu qirtay in uu dilay gabadhii. waxaa la weydiiyey sababta gabadha uu dilay iyo shuruudihii hooyadeed iyo isaga u dhexeeyey. wuxuu yidhi aniga waa ogolaa oo raali baan ku ahaa gabadhan in aan ku guursado, gabadha yaraa xanuunsan, laakiin dhowr mar ayaa waxaan usoo bandhigay in gabadha aabbaheed ay siiso, oo anaga maadaama aan nahay dad isguursaday nolosheena aan fiirsano oo culayska gabadha dusha loo saaro aabbihii dhalay. way diiday. waxaan ka codsaday in aniga aan biilkeeda iyo daawadeedii wax walba bixinaayo, haddana loo geeyo ayeedeed iyo awowgeed ee dhalay caaliya waxay tiri aabbahay iyo hooyaday waa dad waaweyn, mana awoodaan in ay keergareeyaan gabadhan yar ee xanuunsan. waxaa iska daba yimid dhibaatada aan ku qabay. anigoo guriga joogo ayaan dhibsaday dhaqanka gabadha, waxaana dhacday in aan garaacay. markaan garaacay kadibna xanuunkii ayaa kusoo baxay gabadha, laakiin aniga dhibaato weyn oo gaarsiinayso inay dhimato ma gaarsiinin. waxaa la amray cali in 4 maalmood la xiro si baaritaan dheer loogu galo sababihii ka dambeeyey gabadha dhimashadeeda. laakiin waxaa la yaab noqotay markii gabadha loo bandhigay tibbi sharcigii oo la dhahay hala baaro qaabkay ku dhimatay. waxaa soo baxay gabadha jirkeeda dhaawacyo fara badan oo ku yaalay iyo dhiigbax gudeed oo jirkeeda dhowr meel dhiig fariistay, taas oo ay keentay sababteeda garaacistii uu garaacay. waa tahay arrintan gadaasheeda waxaa laga faa'iidayaa cashar aad u muhiimsan. inta badan qisooyinkan oo kale waxaa laga faa'iidaa ama darsiga ugu muhiimsan uu yahay in wax laga barto qaladaadka ay ku dhaceen dadka qeyrkeena ah, si aan uga feejignaano inaan ku dhicin qaladaadkaas oo kale. casharka aan ka faa'iidayno waxaa waaye gabar walbo in ay ogaato horta ilmo in ay mar walba u baahan yihiin labadooda waalid oo ah hooyadii iyo aabbihii in ay la noolaadaan, cid u dhaantana ma laha. mar haddii ay timid in guurkii fashilmo oo la kala tago, waxaa mar walba muhiim ah in labada taraf, maadaama iyagu ay kala tageen shalan waddada isku barteen, ilmihii meesha yimid labada taraf way quseeyaan, oo aabbihiina waa quseeyaan, hooyadiina waa ay quseeyaan. marka in labada dhinac si caqliga uu saamaxayo ay ku heshiiyaan oo loo daneeyo ubadkaas, haddii ay tahay in ay noloshiis socoto, amaba haddii ay tahay in labada dhinacba ilmihii la wada koriyo iyadoo la kala maqan yahay. tarafka hooyada mar haddii ay timaado meesha in ay nin kala guursanayso, waa in ay 100 jeer ka fakartaa ama ka taxadirtaa ninka ay guursanayso, because of ninka ay guursanayso ma aha ninka ilmahan dhalay, mana noqon karo sidii ilmaha aabbahood oo kale. in ay ikhtiyaarato nin markaas ay u aragto nin iyada nolosheeda iyo awlaadeeda rabo oo keergareynayo, ayna ka feejignaato nin iyada jirkeeda iyo muuqaalkeeda keliya rabo. ragga qaarna waxaa darsi meeshan ugu filan, haddii aadan qaadi karin culays oo adiga aan tabartaada ahayn, ama awlaad adiga aadan dhalin aadan waalid u noqon karin, waxaa ka fogaataa 7 tallaabo. waxaad dib uga degtaa gabadhan awlaad haysato, maxaa yeelay
ma dhacayso weligeed hooyo in ay kaa jeclaato awlaadeeda. taas waa habeenkii xala tegay, waa calaa casho timo ka soo baxay. ma dhacayso in ilmo hooyadiis ay adiga inta ku jeclaato ilmaheedii ay nacdo oo ay kaaga soo go'do amaba ay ku siiso ihtimaam ka weyn midka awlaadeeda ay siinayso. waxaan idin leeyahay channelka subscribe ha idin ahaado, gambaleelkan ha idin furnaado si aad qisooyinkeena ola kulantaan markaan soo dhigno channelkeena. like-tana hanaga hilmaamina, like-ta waxay nagu taageeraysaa in dad badan ay videogeena arkaan. waa abuurawaan oo idin leh aad ay u mahadsantihiin asxaabteena. khayr badan waa idin rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.